salligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirta aakhirada adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhagayso waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu daboolay mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hamiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembigiina waa lagaa dhaafay rasuulku yidhi waa salliga nebiga fanuksir nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam salligiisaan badinaynaa salligiisu waa munaajaat culammada islaamka qaar waxay idhaahdaan ma dikriga ilaahay la xusaayaa fadli badan mise salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qaadi cayaad raximahullah fii kitaabi ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafa wuxuu ku sheegay salligaa laysku raaco inuu fadli badan yahay ma daliilu calaa dalika baa lagu yidhi waxay yidhahdeen culammadii fuqahada ahay ee ilaahay nuuraaniyadda uu siiyey subxaana allah markaad tidhahdid buu nebigu yidhi geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulilah markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa laa ilaaha illa allah markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nebiga u soo noqo man sallaa calaya salaatan waaxida salla allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad ii weydiiya isagana 10 jeer buu ilaahay u naxariistaa geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeer oo ilaahay ku naxariista inta ka fadli badan لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلي النبي نبضنا وإن مناجات ساعدها ضمبين إلهي لا مناجون إنه وإن النبي كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي كوينا إنك وين نبوينا ذلك